السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوري ولا أصحاب تكون سوري ولا كورس كيني تحنا كويك بوك يا عشر كيني شنية طمنات عشر كان كوري وإحنا كسر براني قابك لو بحيو وحلو يقانو بيلاش مركا لنقوله ياي هذا بقى وحاين كويك دونا عشر كان انتر بيلس against inventory قابك لو ديوان قليو أما سيستم كله وحرايو بيلاشا tusaale ahaan alaabtii aan soo deymanay ee aysan la socon biilashu ama lacagii deynta ahaa ee lanaga yeeshay alaabta laynoo keenay alaabta tusaale waxaan nidhi alaabta marka dalbatid ee purchase order aad samaysid hadhow markaa receive garanaysa ama alaabta ku timaada laba qaab bay ku imaanaysaa inventory with bill yani receive inventory with bill in lagu keeno alaabtii oo aysan la socon wax biila iyo receive inventory without bill in lagu keeno maxay inventory oo soo la socon wax biil ah hadaba sidee loo diiwaan geliyaa alaabaha lagu keenay lacagtoodii qaabka loo diiwaan geliyay inuu eegi doonaa oo tusaale in ka hadaynaano pay bills halkan waxa inoo yaala laba lacagayo oo kala duwan oo inagu leedahay shirkadda loo yaqaano Somali General Trading Company lacagtan waa lacagtii hore alaabtii aan receive garanay ee biilka la socday lacagtan dambana waa lacag alaab ah oo aan dalbanay dalabkaas oo alaabta markii loo keenay aan laynoogu soo dalacin lacagtii laynoogu lahaa oo aan dib ka diiwaan gelinay hadaba marka waxaan sameyn doonaa dalab waxaan leenahay batch order qaabka loo sameeyo dalabka fadlan ku laabo waxa loo yaqaano casharadii kan ka horeeyay qaabka batch order loo sameeyo kadibna marka aan dalab sameeyno halka waxaan gelinaa funderka ama supplierka aan dalab ka rabno ana leedkan ka dooranaa ka waxaan gelin doonaa wax loo yaqaan itemka tusaale kale waxaan u baahanahay bris oo kale ayaan u baahanahay kiishkii waa $20 waxaan u baahanahay laba xabo ama laba kiish ama waan ka dhigno waxaan u baahanahay 5 kiish oo $20 oo $100 kadibna waxaan leenahay save and close kadib waxaan iska leenahay daaqadan close marka uu alaabta aynu saa u dalbano aan batch order sameeyno hadii aan eegno inventory-ga iminka waxa uu marayaa inventory-geenu sida caadiga ah 2120 wax inventory oo soo kordhimay jiraan deynta lagu leeyahayna 240 marka halkan ayaan imaanana tan hore ayaynu soo aragnay receive inventory with bill maanta waxaan leenahay receive inventory with bill waxaan receive garana alaabtii oo san la socon wax biil ah kadib halkan waxaan gelin doonaa funderka aan ka sugano waxa loo yaqaano dalabka halkan markaan gelino hadii uu dalab jiro isaga ku sheegay hadii kalena kuma sheegi doono kadibna waa kan dalabkii kadibna waxaan leenahay okay kadibna waxaan leenahay save and close imika accounts payable keenu wuxuu marayaa 340 deynta lagu leeyahay hadaan tagno chart of accounts kiino eegno inventory-geena wuxuu marayaa 2220 hadaba marka aan damacno in aan bixino biilkii alaabtii ugu dambeysay ee imika laynoo keenay ee uu soo socon biilka aan pay bills xaggan ma soo gelinayo $100 ee alaabta ahayd ee laynoo keenay ee biilkiisu uu san la socon hadaba sidoo biilka laynoogu leeyahay aynu u diiwaan gelinaa waxaan leenahay enter bills kadibna waxaan gelin doonaa funderka ama supplierka marka aynu alaabta aynu ka soo qaadanay kadibna aan rabno in biilkiisa aynu dalacno halkan ayuu soo gelinayaa halkan tigta waa saari kartaa oo wuxuu ku sheegayaa maxay xilliga alaabtan lagu keenay inaad biil gareysid date-kii lagu keenay kadibna waxaan leenahay okay halkan inoo soo gelinayaa waxa loo yaqaano itemkii bartan ayuu inoo soo gelinayaa kadibna waa please kadibna waxaan leenahay save and close kadibna waxaan leenahay yes hadii imika aynu eegno accounts payable already wuu dilacay 340 weeye inventory-geena already wuu koray oo waynu aragnaa oo 2220 maraya laakiin marka aynu maadno pay bills lacagaha bixino waxa soo kordhiyay maxay $100 ee shirkadaas alaabta aynu ka soo qaadanay bilaa biilkooda oo biilkooda aan dib ka dalacnay kadib aad u baahantay tigta saaraysaa sida caadada waa bixinaysaa casharkii kan ka horeeyay ka soo hadalnay fadlan ku laabo oo soo daawo casharkan aad ku kooban waxaanu ka eegnay qaabka loo diiwaan geliyo alaabta lagu keenay ee uu san la socon biilku
insha Allah waxaan eegi doonaa qaabka loo diiwaan geliyo biilasha kale ama qarashaadyada kale sida laylka sida tusaale ahaan oo waxyaabaha noocaas oo kale qaabka loo diiwaan geliyo ayaynu ka eegi doonaa casharada kale intaan casharka ku xigkulmi doono. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.